xildhibaan xasan shahar oo kamid ah golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa ka hadlay qaar kamid ah dadweynaha degan Axmed Dhagax oo sheegay in ay joojiyeen cashuurtii dawladda hoose meel kasta oo lagu shaqeynayana eed la waayay maayo oo la sameeynaya oo la isku dhaqabsanaya shaqada meesha aanay shaqo ka soconin ayuun baa hadal lahayn waxa degmada Axmed Dhagax waxa weeyaan degmooyinka ugu waaweyn ee caasimadda Hargeysa ee kamid tahay degmada Axmed Dhagax waa degmo qadiimiya waa shantii degmo ugu waaweynaaye caasimadda ay kamid tahay degmada Axmed Dhagaxna odayaashii hadlayay mid waan uga mahad celinayaa waxa weeyaan wixii ay qabteen wadadii ay sheegayeen dad baa horta investment kala hayo dadkii shacabka ay xaafadda laga soo ururiyay baa investment kala ha ee maalgelinta sameeyay waa uga mahad celinaa wixii ay qabteen wixii kale inta ka baxsan ee dawladda hoose ahna dawladda hoose waxa weeyaan degmada Axmed Dhagax marka laga hadlayo 100 mitir iyo 200 mitir iyo 300 mitir ba wax ka weyn ayay degmada Axmed Dhagax dawladda hoose ku leedahay dawladda hoose iyo Axmed Dhagaxna 300 mitir ku kala tagi maayaan wuxuu baa kala dhax cararay waxaan leeyahay nin walba iska naso xilka caasimadda cid buu saaray oo loo doortay golaha deegaan baa loo doortay oo jooga xildhibaanadii degmada ayaa jooga xildhibaanadu cidii codkooda ay ku ururiyeen baa joogto oo maayarka cidda wax weydiinaysa la hadlaysaana waa xildhibaanadiisa halka contribution wixii looga baahan yahay odayaashu waxay ahayd in xildhibaanada la hadlo xildhibaanaduna xaafadda iyo meel kasto ay caasimadda kamid ah iyaga kullee wixii saaranay waxay ahayd in wadada la soo mariyo dabeetana hawsha soo la wada qabto wadooyin fara badan oo aanu ka sameeyay degmada Axmed Dhagax oo ciidana qarnay baa jirta taa caasimadda ka boodda balgubada u socotaba dawladda hoose Hargeysa waxa ay ka qabatay iyo contribution ku bixisay waa loogi wax la qarin karay ma odayga ugu cadcad xildhibaanka ee Fariidka ee xildhibaanna aan leeyahay ee wadooyinka inta badan ka shaqeeya ayaa maraka wixii dawladda hoose ay la qabatay iyo wuxuu waliba maayarka caasimaddu la qabtay wadadan weyn ee halbowlaha ee martay adna horteeda wadada markii aanu sameeynay waxa weeyaan wadadaasi halka waxa ka gashay jaamacadda Hargeysa gashaa ilaahay khayr ha siiyo dadkii tabarucaadka ku bixinayay wax soo ururiyay contribution ka soo ururiyay ee ugu tala galay inay ka qayb qaataan wadada marka ma socotaa dawladda hoose waxba kama soo gaadhin contribution ka haddana lacagtaas oo maqan markii aanu aragnay inay dawladda hoose wadada lacagta contribution ka la soo qaaday dawladda hoose soo gaadhin wadadiina aan gelin in loo joojiyo maayarku ninkii go'aanka adag ka qaatay waxa yiri loo joojin maayo wadadu way dhamaanaysaa qorshe loo Soomaaliland cid uu ka galay oo dawladda hoose hayna ma jirto xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka hadlay biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa waxaana uu yiri haddana xeer madaxweyne ayaa kaxeeyay oo naga madax baneeyay nin wanaagsan baana gacanta ku haya hawsha hay'ado waaweyn oo caalamiina gacan bay siiyeen waxa laga yaabaa waqti dhow hadii la yiraahdo in hawshaas si fiican u qabsanto insha Allah taala in Hargeysa biyahooda gaadhaan Hargeysa horumarta oo hore u socoto oo wada socoto inuu baahan Hargeysa la kala dhigo oo qaybinay cashuur diida qaybina tirada waan bixinaynaa ku noqon mayno caasimad ku noqon mayno ugu dambeyntiina xildhibaan xasan shahar ayaa waxa uu fariin u diray qaar kamid ah shirkadaha ka hawlgala nadaafadda caasimadda Hargeysa shirkadaha qashinka waa loo balansanay heegana way ku jiraan xilli roobaadka oo waxa laga yaabaa xilliyada roobka noocaas oo kala ee kala guurka waxyaalaha iska dhaca markaas aynaan xanuun aynu ugu dhalan oo dadkeenuna ay badbaadaan caafimaad ahaan dawladda hoosena way ag socotaa oo inta iyaduna hawsheedii qashinka way ku jirtaa kombaniyaduna qashinkoodu way ku jiraan way ururinayaan waxaan leenahay kombaniyada qashinka hal laba laaban hawsha Cabdiqaadir Habane wararka magaalada Hargeysa.